barakeysan. Ma ahan bishaan bishii xumaanta la sameynayay, ma ahan bishaan bishii xumaanta la faafinayay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada YouTube channel-kayga waa anigoo walaashin Xafsa halkaad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa inii soo gudbiso isla aniga oo Xafsa Sayid. soo dhawaada meel walba aad joogtiin asxaabay. fadlan channel-ka hadii aad ku cusub tahay subscribe saar, like noo saar insha Allah. commentiga hoos nooga reeb fikrada aad u baahan tahay in lagu soo kordhiyo iyo mowduuca aad u baahan tahay in laga soo doodo insha Allah. lana wadaag asxaabtaada insha Allah. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclaa walaalkaaga. soo dhawow meel walba aad joogtaan iyo saacad walba ay tahay iyo dal iyo dibad meel walba aad adduunka joogtaan. waxaan idin leeyahay Ramadan Kareem mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay Ramadan Kareem bisha barakeysan ee Ramadan. alxamdulillah maanta ayay noo bilaabatay. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale insha Allah in ka faa'iideysano. waa bishii albaabada jannada la furayay, albaabada naartana la xiraayay. waa bishii barakeysaneed quraanka oo soo deganayay. waa bishii ajarka iyo xasanaadka fara badan la laba jibaarayay insha Allah. dambi dhaafka la badsanayay aan ka faa'iideysano. bishaan waa bil kheyraad, waa bil barakeysan. ma ahan bishaan bishii xumaanta la sameynayay, ma ahan bishaan bishii xumaanta la faafinayay. bishaan ma aha bishii dilka la geysanayay, bishaan ma aha bishii xoolaha islaameed la cunayay, bishaan ma aha bishii lisku xumaanayay, dadka caloosha isku xumaanayeen. waa bishii ajarkeeda iyo xasanaadkeeda la shaqeysan lahaa, laga faa'iideysan lahaa wax walba oo nolol gudboon oo aan sameyn lahayn. bishaan waa bishii wanaagga iyo khayrka la faafinayay oo laga faa'iideysanayay oo maxaa la dhahaa meesha xumaanta laga faafin lahaa wanaagga la faafiyo quraan akhriska la badiyo insha Allah. bishaan waa bishii quraanka soo degtay. waxaa loo baahan yahay quraanka akhriskiisa in la badiyo. quraanka dad basii waa akhriyaan. dadaa waxaa jiro bisha see u bilaabataba aan quraanka saas u fiirin. dadaa waxaa jiro oo dad 3 bari ku dhameynaya jiro. dad waxaa jiro hal juz akhrisanaya jiro, dad hal xisab akhrisanaya jiro, dad hal maqra akhrisanaya jiro. insha Allah ka faa'iideysano. aniga runtii waxaa ku dhameeyaa 3 maalin ku dhameeyaa quraanka dhan gudihiisa. bishii marka la isku daro meeqeen marka maasha Allah. xalqadii afraad insha Allah. waxaa la dhahay Ramadaanka waa bil la furo dhammaan albaabada jannada lana xiro albaabada naarta. labada sheekh saxiixooda waxaa ku xusan xadiis uu soo wariyay Abu Hurayra nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri Ramadaanka waxaa la furaa albaabada jannada waxaana la xiraa albaabada naarta. shayaadiintana waa la xirxiraa. ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu laabaa ajarka iyo xasanaadka. saxiixa Bukhari iyo Muslim waxaa ku xusan sidoo kale xadiis uu soo wariyay Abu Hurayra nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu dhahay qofkii sooma Ramadaan isagoo ay ka tahay rumeynayo Allah subxaanahu wa tacaala iyo ajar doonis waxaa loo dhaafaa wixii dambi uu hore u soo galay insha Allah. waa qaybtii afraad iyo berito insha Allah. soo dhawaada asxaabay halkaad naga daawaneysaan waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisay isla anigoo ah walaashin Xafsa Sayid. soo dhawaada meel walba aad ka joogtaan daafaha caalamka. Ramadan Kareem mar labaad iyo mar saddexaadba. fadlan channel-ka hadii aad ku cusub tahay subscribe saar, like dhiirgelin ayay noo tahay, share la samee asxaabtaada la wadaag si ay dad badan ugu soo xirmaan ugu faa'iideystaan. wixii commenti ee hoos nooga reeb aad u baahan tahay in laga soo doodo mowduuc walba aad u baahan tahay. anigu waa Xafsa halkaad naga daawaneysaan waa Xafsa Sayid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.